faqasta ee dagaalkii inaga soo gaaray maalintii halkii gaadeen xuduudkeeniba ayay joojiyeen may socon way socon lahayn garowe dhulkaas oo dhan way qabsan lahayn halkii xuduudkeena markii ay joogeen ay oo laascanood ka yarshaysa ayay joojiyeen dagaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan daawadayaal soo dhawaada waa mar kale iyo walaalkeen Aadan Karaama halka aad dabcan iga daawanaysaan oo barta YouTube-ka ku leeyahay Aadan Karaama. haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato fadlan subscribe-tan ugu sharaf riixka maleelka cas noqo qofka ugu horeeyay soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh halkan kusoo gudbino. haddii aad hore inoola joogtayna aad ayaad u mahadsantahay soo dhawow. haddii aadan weli kusoo biirin baraha kale ee bulshada sida Facebook-ga iyo TikTok-ga labadaba ayna soo follow garee halkaasna aynu asxaab ku noqono soo dhawaada. Axmed Maxamed Diiriye xaalado badan baa wadanka ka jira diiwaangelin baa ka socota laascanood xaalad baa ka yar taagan bal waaqaca dalka maxaad ka oran lahayd kooda laascanood nimanka waxaa ku taliyay waa inay gardaran yihiin laascanood waa Somaliland madaxweynena ku muuqatanin waan ku raacsannahay waa Somaliland Partition of Africa markii la sameynayay 1884kii ayuu Ingiriisku inta maxkamadu soo goostay British Somaliland looga jiray ayay ku jirtay iyo French Somaliland Italian Somalia marka anagu waxaan leenahay madaxweynuhu waan ku raacsannahay inuu laascanood uu Somaliland ku hayo waan raacsannahay qaladna kuma aha waa ku saxsanayay adduunyana waxaanu sheegaynaa adduunyana waxaan Soomaali sool iyo Sanaag inaan qabaaylaan lagu kala qaybin ay maxkamadaha Ingiriiska lagu kala qaybay waliba xuduudka marka laascanood xoogaa la dhaafo garow xuduudka yar buu jiraa bir baa ka qotoman ilaa halkaa weeyaan xuduudka Somaliland marka madaxweynaha waan ku taageeraynaa inuu laascanood ku hayo kuna soo celiyo xuduudka Somaliland. rabshadaha ka dhacay laascanood xildhibaan dad baa ku dhintay dilal hore uga dhacay xogaa kacdoon baa ka jira ku haynta Somaliland ka sokow rabshadahaas iyo sida loo waajahayo maxaad ka oran lahayd kooda waxaan ka oran lahaa dee horta wixii dhacay soo noqon mayso wixii dumun loo taliyo in rabshada ma naga ilaaliya wixii tagayna Allah u naxariisto waa dee waa wax qalad ku tagay oo dad fikrad xumay ay ka taliyeen marka waxaa la iminkaba walaalayaal wax qalad yaan inaga bixin wax kale oo dagaal kale inaga bixin bila waatii laga raacayaa inaan sool inaan gelin koonfurna tagin marka ma qabaayil baa loo qaybsan ila Soomaaliya ayay hadii noqonaysa koonfurna u kala qaybsamaysa iyo ma jeesteen iyo daaro iyo bilaayo waa intii maxkamadi Ingiriisku ka taliyay waa inaanu haysanaa aanu saan u haysanaa aanu walaalnimada ku haysanaa magaalada cid ugu badna waxa soo gala cid ugu badna khayraadka wadanka ka yimaado waxa ugu badna madaxweynaha uu hooyo iyo ka inta badan uu qabtay mashaariic badan inta iyada loo qabtaa marka waxaan leenahay walaalayaal madaxweynaha waan ku aysanahay ha ku taambaabina in baabacada ka soo bixi in soolkoodo way u goodo koonfur baabacada ka soo markaas aad leedahay nacnac yaad u jeedaa leedahay Somaliland weeyaan sool ama Sanaag iyo markaas aad leedahay maxaad u jeedaa macid baa arinta wada nimanka inta laascanood baan goosan waxaan goynaa ee maalmahan rabshada ka waday anu ma garanayo nimankaas anu jeedaan walaalahay istaalina waxba sool go imaysi haystaalina marka waa nimanka leh koonfur baan wana ku nahay inamada yaree kacay weeyaan aan de garanayn taariikhdan aan garanayn ee iska kacay laab kacay taa marka laga yimaado ciidamada Somaliland sida lagu taliyay inay laascanood dibadda uga yar baxaan inta rabshada u dagayaan garajama iyo odayaal hogaaminaya guddi baa ku sugan go'aamay soo saareen waxaa kamid ah in ciidamada u dhashay gobolka Sool ay iyagu gacanta ku hayaan halka maxaa kaaga baxay waxa iga baxay waa qalad ciidamadu waa dhaf hargeysa ciidan wali waa jooga boor way joogaan burco way joogaan waa qalad waxa weyn ciidamada Somaliland waa inay ku soo noqdaan ay xasiliyaan mar hadii ay xasiliyaan oo ku soo celiyaan inay sool tahay laascanood tani Somaliland wayna u sheegaan horna u ogaayeen khayrna ay inuu insha Allah bismillah karim ay nagu soo celiyaan baan ayaanu aysan markii ay dilku dhacay shaqaqadana ka dhacday xildhibaan dadkii isku soo baxay iyagana sidoo kale dil kala ka dhashay oo ciidamada isku hor yimaadeen arintaas mas'uuliyadeeda yaa rabaa
waxa mas-uuliyadda ninkii soo baxay rabshada bilaabay mas-uuliyadda qaadaya wuu soo baxay wuu tuuray xabad bay ugu soo riday marka anigu dee haddaan qoraystaan ugulan ku ridaya nin walba nasiibkii askarteenna way ku riday iyo kuna qoriye iyo dhexama soqaadin iyo kaa ka horreeyey waayo askarigeenna kuma dhici karo inaan meel aan xabad laga soo ridin ama aan qor laga soo inu ku rido waa qalad iyo kaa nabadgelyo ka jecel iyo kaa ku soo riday markay arkeen ay dhaawaceen iyo kii askartii laayeen ay dee nafsiisa nin walba la baxso iskaga reeba dad cabanaya oo haldoorkoodii la dilay oo cabasho muujinaya in xabad loo adeegsado oo dhimasho kale lagu daro ma sax ba maya sax maaha waa in laga joojiyaa ilaa ay dee ku xanuujineen wayna xanuujiyeen sayn ciidankeed iyo kaa usoo hanjabay oo usoo abaabulay oo kaga horiyay gacanta laakiin waynay u dulqaataan weliba iyagoo aan waxba ku dhicaan wayn dulqaadkayna ku yeelanaa oo ay u dulqaataan maan leenay arrintan waxay ku soo beegantay xilli ay jirto diiwaangelintii codbixiyaasha doorashooyinka laba siyaasi oo ka soo jeeda gobolka sool baa qayb ka ah ururadan soo baxay oo weliba ragga ugu cadcadaha nimanka xaalkood muxuu noqonayaa bas xaalkood wuxuu noqonaya wayna dhex galanay u sheeganay waariyaalan dee waxaynu somaliland baynu nahay maxameedda somaliland baynu ku jirnaa berish somaliland baa layna odan jiray intayniba isku soo goosanay waa tii halgankii inaga soo maray waa ogeedeen faqasta ee dagaalkii inaga soo gaadhay maalintay halkii gaadheen xuduudkeeniba ayay joojiyeen may socon way socon lahayn garowe dhulkaas dhan way qabsan lahayn halkii xuduudkeena markii ay joogeen oo laascanood ka yarashaysa ayay joojiyeen dagaalkii marka waxaan leeyahay walaalayaal buuqay naga daayay way naga daayay khayrka oo diiwaangelinta gala oo kaararka qaato oo insha allah bismillahi kana xisbi wanaagsan ayaan la soo bixi doonaa ataashiya samahayn xaqala toosiye insha allah kuwaasaa soo bixi doona waa nimanka u hiliyo buuqaya balaayada ka daayay mar haddii diiwaangelintii waddanka ka socoto aana gobolkaana ka socon maxay noqonaysaa dee waxay noqonaysaa waa waxbaa ka dhiman marka diiwaangelinta waxbaa ka dhiman dee marka ma dhacayso waa in lala suwayntahay taas wax noqonayso mar haddii aanay waxba ma noqonay adeer mar haddii aan diiwaangelintii aanay lagu socon dee maxaa soo baxay nothing will come out gobolkii sool in isaga mar gaara laga qabtay noqonaysaa adugu adigeed in badan baad soo joogtay ilaa udubtii sidee bay noqonaysaa mar qulun baa la wada qabtaa diiwaangelinta mar qulun baa la wada qabanaya mar haddaanay gobolkii ka socon markaa isaga masaasaa lagaga tegi maayo lama qaban bee waa in insha allah intaas xalin baa iman doona nimankaa ka soo jeeda gobolka sool ee han kale ururada la soo baxay maxaad ugu baaqi lahayd odhan waxaan ugu baaqi lahaa inay dadkii dhex galaan oo ka kacaan meesha oy meesha tagaan dhulkii sool tagaan oo u sheegaan waxaa socon maaya in dadka ay naga reebeen oo kaararka qaata wayna kacaan dee way kaceen badan malay way maqan yihiin marka sidaasaan kula talan lahaa tan iyo muuqaalkan midka xigay intaan ku kulmayno walaalkan aadan karaama oo idinka codsanaya markaas inaad subscribe inoo saartaan riixdaan gabalaalka cas isla markaana aad noqotaan qofka ugu horreeyay ay soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan aan kusoo gudbino haddii aad hore inoola joogtayna aad iyo aad ayaad mahadsantahay madaxan waad noo saarantihiin haddii aadan weli kusoo biirin pagekayga facebooka iyo sidoo kale tiktoka labada waadna soo follow garan kartaa halkaasna waxaan kusoo gudbin doonaa muuqaalo gaagaaban oo markaasi xiise leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyo